بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا ورئيس gaar ah aan ku falanqeyn doono xaaladda guud ee siyaasadda ay ka jirta gudaha dalka Soomaaliya waxaan igala qayb galaya Cabdiraxmaan Maxamed Cali Diini oo ah falanqeeya siyaasadda Soomaaliya kusoo dhaw barnaamijka waa maasantahay Cabdullaahi Axmed Cali waana ku dhawahay barnaamijka waan kaaga mahad celinayaa waqtiga qaaliga oo noo soo hortay Cabdiraxmaan waxaad falanqeysaa siyaasadda Soomaaliya guud ahaan inta xukuumadda federaalka Soomaaliya ay iminka jirto maxaad is leedahay way u qabsoomeen maxaa laga filayay inay u qabsoomaan waqtiga ay jirto waa maasantahay Cabdullaahi marka hore waxaan u mahad celinayaa maamulka TV-ga Somali Cable iyo shaqaalihiisa si gaar ah adigana waan kugu mahad celinayaa fursadan qaaliga ah oo aad maanta igu casuumtay inaan halkan wareysi iyo falanqeyn ku saabsan arrimaha xaaladda siyaasadda Soomaaliya aan ka bixiyo haddaan u gudbo dowladda federaalka isbedel ayaa ka dhacay dalka Soomaaliya sida la socoto waxaa la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dadka inta badan hami badan iyo taageero badan ay u muujiyeen markii uu ololihii ku jiray wuxuuna ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee kasbada qulubta iyo taageerada shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibadda meel walbana waa lagu dabaaldegay markii la doortay hami badan iyo waxa loo qabay iyo farxad badan ayaa shacabka muujiyeen inta kadib waxa dhacday inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ah nin siyaasadda Soomaaliya ku cusub laakiin ku soo jira arrimaha bini'aadanimada iyo hay'adaha khayriga ka shaqeynaya dadka yaqaaniin markii hore ay ku tilmaameen inuu ahaa nin howlkar ah oo wax badan ka yaqaano arrimaha maamulka waxaana doortay oo soo xulay wasiiro kala duwan oo inta badan oo u fiiriyay isaga in aqoon ahaan iyo cilmi ahaan inay wadi karaan xukuumadda oo soo dhisay baarlamaanka Soomaaliyana si aqlabiyad leh ayuu u ansixiyay sida la socoto waana markii ugu horeysay oo si cod noocaas oo kala hal mar baarlamaanka Soomaaliya golo wasiir la soo hordhigay ay u ansixiyeen golaha la taaban karno gaartay dowladda federaalka gaar ahaan xukuumadda iyo guud ahaan marka la isku qabto waxa kamid ah dhanka maaliyadda aad ugu shaqeeyeen oo maaliyadda waxa ka jirtay caqabado badan waxa ka jirtay musuqmaasuq badan in badan xoogaa aad ayay arrimahaas waxa ku qabteen dhaqaalihii Soomaaliya kor ayuu u kacay arrimaha ciidankana madaxweynaha Soomaaliya mudnaan gaar oo siiyay wax badan oo isagana sidoo kale ka qabtay marka laga hadlayo xiriirka arrimaha dibaddana faragelintii baasaneed ee dowladaha shisheeyaha ay ku lahaan jireen dowladda federaalka hadda wuu yaraaday saddexdaas qodob markaad fiiriso waxaan moodaa inay guulo ay ka gaareen dhinaca kale waxaa jira caqabado kale oo ayagana soo wajahay dhanka marka laga hadlayo maamul goboleedyada oo dhibaato badan oo xagga khilaafaadka ah ay ka dhaceen oo waliba maamul goboleedyada markii ay ayaga cabsadeen oo isdhaheen dowladda federaalka duulaan ay nagu soo qaadaysaa qaarkood ay xilalkooda u baqeen ay kismaayo tageen waxaana ay doorteen ma samaysteen golo ay ku midaysan yihiin maamul goboleedyada marka guud ahaan dhinacaas marka la fiiriyo khilaafyadii ka dhacay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo inta halka sana ay jirtay wax badan horta dowladdu way qabatay dhanka isfahan darrada iyo dhankaas kale marka laga fiiriyo xoogaa caqabada ka jiraan inta ay jirto halka sano iyo bilooyinka dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taageeradii ay ka haysteen shacabka Soomaaliyeed ma la dhihi karaa way haystaan iminka sida la socota Cabdullaahi oo mar walba Soomaalida inta badan dalka gudaha iyo dibadda markii ay joogaan marka wax la taageerayo ama taageero la siinayo dhinacyo badan ma aysan fiiriyaan hal dhinac la fiiriyaa maadaama madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligii ra'iisul wasaare ahaa oo Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho wax badan uu ka qabtay xilligii oo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu magacaabay ra'iisul wasaaraha oo inta badan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay isla shaqeeyeen culayskii magaalada Muqdisho ka jiray iyo kooxaha argagixisada ay haysteen magaalada Muqdisho ayuu ka saaray markaas kadibna waxa la arkay ninkan in uu kasbaday qulubta iyo shacabka Soomaaliyeed taageeradooda waagaas wixii ka dambeeyay niyad badan loo hayay inkastoo doorashadii hore uu galay uu ku guuldareystay haddana waxa jirtay in uu dibadaha tagay oo wax badan soo qabtay xisbi siyaasadeed sameeyay kadibna sidaas wacyigelin badan soo sameeyay oo mararka qaar waxa dhici karto adiga oo hoola lagu igmaday Janis markaa hesho oo fursadaha isku aadaan inaad soo muuqato
marka taageeradii hore inta badan hadda marka la fiiriyo maalintii la doortay hadda sidoo hore maaha taageerada qaar way isdhimeen khilaafaadkan iyo ra'iisul wasaaraha iyo arrimaha isqabqabsiga marka la fiiriyo ayaa keenaysa marka in qaar ka mid ah taageerayaashii aad u xamaadsanaayeen in ay hoos u dhacdo maalmahan waxaa soo ifbaxayay khilaafo u dhexeeya baarlamaanka gudihiisa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya taasi oo ahayd mooshin laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka waxa la leeyahay waxa khilaaf soo kala dhex galay ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka arrintaasi bal faahfaahin naga sii Cabdullaahi waa maasan tahay sida dal socoto Soomaaliya marka laga hadlayo arrimaheeda khilaafka hadda ka dhaxeeyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waa markii ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed oo dawladda federaalka madax ka ah iyo gudoomiyaha baarlamaan ay isqabtaan marka hore siyaasadda Soomaaliya waxa la ogaan jiray inay isqaban jireen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha mar walba waxa la arki jiray saddex ra'iisul wasaare laba ra'iisul wasaare in madaxweyne walba uu soo maro laakiin hadda khilaafkii hore oo dadka Soomaaliyeed ogaan jireen mid ka duwan hadda soo baxay khilaafku wuxuu u wareegay xukuumadda iyo baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka khilaafkiisa mid hore loo sii ogaama aha wuxuu noqday mid si kadis ah ku soo baxay dadka qaarna ma aysan filaynin in arinta siyaasadda noocan oo kale ah ay dhacayso hal mar waxa soo baxay gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari in mooshin laga keenay oo la yiri xildhibaano gaarayo 92 xildhibaan ayaa mooshin ka keentay sida daraadeed xildhibaanada waxa ay diyaar u yihiin in codka kalsoonida ay kala laabtaan maalinta wixii ka dambeeyay xaaladda siyaasadda dalka shaqooyinkii socday wax walba oo dawladda Soomaaliya faraha kula jirtay ama hay'adihii wasaaradihii xitaa ciidankii dhanka ammaankii waxa yimid fadhiid bay noqdeen sababtoo ah nin walba oo siyaasadda Soomaaliya waxyaabaha dhibaatada ka jirta waaye haddii xukuumadda iyo baarlamaanka isaysto waxa soo galayo saraakiisha ciidamadii amniga intay ka shaqeyn lahaayeen qaarkood waxay karkarinayaan mooshinada labada dhinac markaad fiiriso khilaafkan hadda ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka horta waa mid dhibaato u ah Soomaaliya xilligan inuu ku soo beegmanay waxay ahayd arin culeyskeeda siyaasadeed leh gudoomiye Jawaari waa nin soo shaqeeyay muddo badan siyaasadda ku soo jiray haddii la isqabto heer noocan oo kale ah in la aflagaadeeyo oo dhulka la isla galo oo baarlamaanka xildhibaanadooda ay kala saftaan oo laba kudla ay kala noqdaan dhinac walba dhinaca kale warqada ay soo kala saarayaan waxaas oo dhan markaad fiiriso waa dhibaato iyo caqabad handale dawladda federaalka soo saameysay khilaafkii gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha kaliya kuma ekaanin wuxuu u sii gudbay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka koowaad iyo labaad iyo kadibna wuxuu u sii gudbay shaqaalihii xitaa baarlamaankii waa la kala saftay taasaa keenaysa marka in khilaafku uu sii xoogeysto arrintan ay noqoto mid oo soo jiitantay muddo bil hadda ku dhow wax shaqeeya haba yaraatee malaha dhinac walba dhinaca kale wuxuu difaac ugu jiraa dhinaca kale sidoo meesha ugu saari lahaa siyaasadana waxay noqotay in dhinac la isku riixo taasina waxa waaye dhibaatooyinka Soomaaliya haysta waaye haddii si dimuqraadiyada codka lagu kala bixi lahaa culayska intaan oo kale ma imaan lahayn aqalka sare waa ogtahay talooyin badan oo soo jeediyay waa la diiday wax ka jira haba yaraatee malaha yiri shir jaraa'id ay qabteen gacanta ka taagan yiraahdeen waana nasiib darro weyn in Soomaaliya hadda xaalad badan oo fiican iyadoo ka soo gudubtay in dib loogu celiyo arrimo siyaasadeed oo aad u cakiran anigana waxaan qabi lahaa in arrintan baarlamaanka iyo xukuumadda in si habboon oo guud oo is-afgarad ah oo sharciga iyadoo loo laabanayo lagu xalliyo maxaa keeni kara marka in ra'iisul wasaarihii dalka iyo gudoomiyihii baarlamaanka iyagoo isku shaqo aan ahayn inay waqtigan isqabtaan sida la socoto Soomaaliya danan badan wuxuu ku leeyahay caalamka arrimaha hadda inta badan loo aaneynaya khilaafkan waxa kamid ah heshiisiyo sida uu gudoomiyaha baarlamaanka sheegay wuxuu yiri aniga waxaan qaaday waayay inaan saxiixo waxyaabo qaar ummadda Soomaaliyeed hadhoobti dhibaato u keeni karo caalamka cadaadis badan oo mararka qaar dawladda federaalka ama xukuumadda wuxuu ku saarayaa in ay heshiisiyo ama barnaamijyo la galaan gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaarahana inta badan hadda waxa loo aaneynaya arrimaha
ka taagnaay carabta oo kale ayaa saameyn ku yeelatay dalka Soomaaliya DP World iyo arrimaheeda waagii hore Soomaaliya waxa dhihi jiray siyaasadeeda waxa qasayso dawladda Ethiopia nin walba oo siyaasi markii uu rabo inuu wax noqdo ama maxaan ku dhahaa xil u tartamo waxa la tagi jiray Addis Ababa la tagi jiray hadda dalka Soomaaliya gaar ahaan siyaasadda hadda qayb ugu dambeeyay waxa qaatu bilaa laga taagan yahay Imaaraadka iyo wadamada Carabta qaliijka isbeestay khilaafkii dawladda federaalka ay dhexaad ka noqotay oo arintaasi Qatar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa hadda waxa loo soo wareejiyay Soomaaliya xildhibaanadii la rabay in arrimahaas si maskax uga hadlaan la rabay in waxaas ay u yaareen arrimo carbeed ay tahay oo dawladda Soomaaliya aysan faraha kula jirin ayaa waxa la keenay baarlamaankii marka la keenana wax walba oo la fududeyn karo waa la fududeynaa gudoomiye Jawaari wuxuu taagan yahay aniga sharcigeyga iyo wixii baarlamaanka ku saabsan iyo xildhibaanada aniga u madax banaanaanaya xukuumadana waxa aragtay inay soo fargelisay baarlamaankii maadaama gudoomiyaha baarlamaanka laga bilaabay caqabada taagan caqabada isaga wahay caqabada si meesha loogu saaro waa in gudoomiyaha baarlamaanka meesha la saara xukuumadana kadibna waxa ay ayada rabto baarlamaanka ka socodsiisay inta lagu isku haysto intaas waa awoodda gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxa loo arkay inay culays tahay si loogu dhaqaajiyo meesha waa in mooshin laga keenaa xukuumadana waxa waa ra'iisul wasaaraha hogaaminayana wax walba dadaal ayagana ay ku bixiyaan qaar ka mid ah xildhibaanada ku saxiixina mooshinka laga keenay gudoomiye Jawaari qaarkood oo muuqaalo baraha bulshada ku soo faafiyeen waxay sheegeen inay ka laabteen ama aysan ku jirin qaarkood siday sheegeen inay ku saxiixeen mooshinkaasi marka maxay tahay waqtigii hore ay uga hadli waayeen oo iminka ay uga hadlayaan horta Cabdullaahi xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya sida ay ku yimaadeen nin walba waa ka warqabaa nin walba faataxa loo maray oo la yiri niyo adaan ku dooranay codkan adaan ku siinay hore u soco la dhahay ma jiro nin walba tabartiisa iyo taagtiisa ay ku yimid waxa doortay ergo oo kontiniko qof ah dad badan la tartamay nin walba itaalkiisa iyo karaankiisa ay ku soo baxay horta xildhibaanada dawladda federaalka waxa fiicneed iyadoo aanan qarashaadka ka baxay iyo dhibaatooyinka ay soo mareen sidaas si ka duwan hadii u soo bixi lahaayeen maanta dhibaatooyinka dhacayo ma aysan dhici lahayn marka xildhibaan aanan haysan amni xildhibaan aanan haysan damaanad oo maxaan ku dhahaa amnigiisa iyo waxa uu u baahan yahay helinin xildhibaan ku soo baxay waxaan qarashaad badan oo soo galay xildhibaan cadaadis ku soo baxay waxaas oo dhan marka aad fiiriso waxa imaanaya xildhibaanada inay laba garab u kala qaybsamayaan meesha dantooda iyo faa'iidadooda ay ka helayaan ay aadayaan ummadda Soomaaliyeed dantooda inta badan kama shaqeeyaan haddii ay danta ka shaqeey lahaayeen ciidamadan oo dhibaatooyinka Soomaaliya ku haayo Imaaraadka ka mid yahay ay mooshinno ka keeni lahaayeen si toos ah loogu bixi lahaa dawladda maxaan ku dhahaa dalka Soomaaliya marka dhinaca kale marka aad fiiriso dantooda ay xoog saaraan meesha ay dan ka helayaan ay aadayaan xumaanna ma aha haddana wax oo laga sheegayo oo been laga sheegayo ma aha waa wax ayaga ku dhaqmayaan ayaga afkooda marka qaar ka sheeganayaan marka mooshinka qaarkood iyaga uu dan yahay waa ku nool yihiin mooshinka ku nool yihiin sababtoo qof walba kalluunka dabiye la'aan ma noolaan karaa yaa xildhibaanada Soomaaliya saasay la qabsadeen waa caado iyo dabeecad ay la qabsadeen marka mooshinka ku nool yihiin marka hadii mooshinka meesha laga saaro waxa waa waxay aaminsan yihiin inay dhimanayaan sababtoo qaabkay ku soo baxeen ogyihiin xildhibaan 1 milyan ku soo baxay adiga maanta ma ka sugaysaa Soomaaliya inuu fursad siiyo oo wanaag ka waxa jira baarlamaanka xildhibaanada baarlamaanka oo kale shaqooyin badan ah horyaala iminka sharciyo badan ah horyaala baarlamaanka oo la rabo inay ansixiyaan marka maxay tahay sababta mar walba mooshin ay u keenaan xildhibaanadii hore ama baarlamaankii hore sagaalaad sida la socoto waxaa jira xeerar badan oo la rabay inay ansixiyaan oo ay ka shaqeeyaan xeerarkaasi waqti xitaa looma helin waxaa timid madal oo ay ku midaysan yihiin maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka 2 sano in ku dhow madashaas ayaa horta dalka maamulaysa xildhibaanada qaar waxa waaye shaqadooda xildhibaanadii oo dhan ee baarlamaanka hoos baa loo dhigay xildhibaanada haddii ay isku dayaan ayaga inay shaqadooda si fiican u gutaan oo ay baarlamaanka imaadaan oo mar walba ay ka shaqeeyaan oo xeerarka iyo sharciyada sida ay tahay u xaliyaan waqtiga
ay ayaga faa'iido heli lahaayeen meesha uga baxaya marka si xeerarka qaar iyo sharciyada aysan waqti fiican loo helin ayaga waxay keensanayaan fursado iyo dana ayaga micnaha ay ugu faa'iideysanayaan barnaamijyada iyo howlaha ay wataan xildhibaanada qaar waxaa la leeyahay waxayba meesha u joogaan ay dan Soomaaliyeed ma ahe qaarkood ganacsigooda ku ilaalsadaan qaarkood hanti kale ku ilaalsadaan qaarkood arrimo kale meesha u joogaan marka sharciyadan la rabay inay ka shaqeeyaan oo howlo badan ay qabtaan ma qabtaan inta badan waxa arkaysaa xildhibaanada xitaa 3 saac ma shaqeeyaan waxa arkaysaa xilliga baarlamaanka la furayo iyo xilliga la xirayo saacado kooban waaye marka baarlamaan dhan shaqo laga sugayo 2 saacadood iyo 3 saacadood wuxuu kale leeyahay gudiyo oo loo kala xil saaray gudi walbana waxa laga sugaa ama lagu xisaabtama shaqadiisa gudiyadaas way jiraan inta badan gudiyada horta xeerarka iyo sharciyada ayaga soo falanqeeyo gudiyadaasna waxa waaye xeerarka inta badan sida ay u soo qoraan hadii loo ansixi lahaa xitaa fursado badan la heli lahaa gudiyada qaar xitaa marka qaybka dhibaatooyinka haysta baarlamaanka inay kala qaybsamaan oo dhinac walba fursadooda iyo jaaniskooda meesha ka helanadaan xogayaha joogtada ee baarlamaanka waxa laga joojiyay shaqadii uu ka sameeyay oo uu sameeyay waxaana warqad soo saaray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka xaq uu leeyahay inuu shaqo ka joojiyo xogayaha baarlamaanka arintan waxay ku tusinaysaa siyaasad xumada haysato hoggaanka baarlamaanka Soomaaliya waxaana arintan ka dambeeyay khilaafka ra'iisul wasaaraha ama xukuumadda iyo gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari gudoomiye ku-xigeenka koowaad Mudee wuxuu si cad ula saftay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya amrada inta badan oo ka qaadan lahaa gudoomiyihiisa isaga ka sareeyay khilaaf kala dhaxeeyo wuxuuna aaminsan yahay maanta inuusan ahayn gudoomiye baarlamaan oo mooshinka yaalo gudoomiyaha baarlamaanka isaga wuxuu aaminsan yahay mooshinkii laga waday inuu buray xildhibaanadii la rabay inay saxiixaan qaarkood muuqaala ay ka soo muuqdeen oo baraha bulshada la soo dhig iyo raadeen aniga arintaasi waxba kama ogin waana lagu qardarooday Cabdikariin Xaaji Buux xogayaha baarlamaanka muddo badan oo soo shaqeynayay nin wax badan soo qabtay waayay dalkan dadka u soo sabray ayuu ka mid yahay xaq uma laha gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad Mudee inuu hadda xilkan oo ka qaado system iyo nidaam jiro hadda khilaafka isagoo ugu faa'iideysanayo oo shaqooyinka oo wada raba ninka inuu ku xoreemiyo ayuu warqad saas ugu soo saaray laakiin mid sharci ku eedeynaya in arinta siyaasadda mooshinka uu soo kala dhex galay Cabdixakiin horta waxa waaye xogayaha waaye inaan fahno hal mid waa muhiim gudoomiyaha baarlamaanka waa la doortay waa la shaqeeyaa xagga shaqada iyo nidaamka iyo maamulka shaqaale badan ayuu leeyahay baarlamaanka Cabdikariin Xaaji Buux wuxuu ka mid yahay shaqaalaha ugu muhiimsan waana xogayaha shaqada gudoomiyaha u diranay ayuu qabanayaa marka shaqadiisa hadii uu wato hadii loo arko inuu ka hor imaanayo gudoomiye ku-xigeenka Cabdiweli Ibrahim Mudee isagana waxa waaye culayska oo dareemayo si uu meeshaas ugu wiiqo ayuu ninkan xilka sida ugu qaadaya marka arimaha dhan markaad fiiriso waxa waaye mooshinka aan ka wada shaqeyno aan ridno gudoomiyaha baarlamaanka iyo nidaamka sharciga marayna inta kaliya isku haysta wax kale ma jiraan gudoomiye Mudee wuxuu sheegay in ilaa iminka uu taagan yahay arinta mooshinka ay taagan tahay ilaa iminka marka qaab sidee ayaa xal loo gaari karaa ama lagu jooji karaa oo xal loo gaari karaa arinta mooshinka walaahi Cabdullaahi Axmed Cali waa la socotaa meeshan aqalka saraaso dhaxgalay waxba uu ka qaboomay rag badan oo siyaasiyiin ah waxay rabeen xitaa si hoose arimahan inay u xaliyaan gudoomiyaha baarlamaanka markii mooshinka laga keenay habeenka ugu horeeyay gudiyada joogteeda oo dhan baarlamaanka fariistay waxa si cad loo soo saaray in mooshinkii uu buray 91 qof xildhibaan ay saxiixday marka waxa fadhiyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiweli Mudee ma uusan ka hadlin gurigiisa markuu tagay kadib shir jira ay qabtay go'aanka markaas ma qaadan arinta hadda culayska ugu badan ee haysta baarlamaankii wax walba laga sugaayay maxaan ku dhahaa la rabay in xeerar badan iyo sharciyo badan qabto caqabadii isaga horta isku soo koobo isku soo celiyay mar caqabada isku soo celisane dhibaato iyo culays adiga dusha aad saaratay oo xagga sharciga hadii la aadi lahaa waxaan dhan way kala fududaanayeen baarlamaanka jiro gudoomiyaha baarlamaankii waxa laga keenay mooshinkii uu buray
sida uu gudoomiyaha baarlamaankii dhahayo cabdiweli moodeen wuxuu aaminsan yahay in mooshinka uusan burin oo weli jiro gudoomiyihii baarlamaanka wuxuu isagana ku andacooday baarlamaanka ciidanka jooga meesha waa laga qaaday ciidan kale la keenay waa la afduubtay afgambi baa dhaco leeyahay marka isqabqabsigaasi labada dhinacba xildhibaano ku fulan oo cod siinayo ma haystaan gudoomiyaha baarlamaanka sidaa la socotay markii hore la dooranayay xildhibaano badan oo aysan dooranaya jiro waa lala tartamo waa la socotay tartan aragoo galay xildhibaanadii codka aysan siinin aadka u tiro badnaa weli way joogaan haddana waxaa uu helay taageero badan xildhibaano kale oo dowladda ayagana mucaarad ku ahaa oo inta badan xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha diidanaa ayaa isagana waxaa hadda siiyaan garab weyn garabkaas hadda wuxuu keenay in la waayo cod gaarayo codadka loogu talagalay in kalsooniga lagu qaado marka waa la jiidaa sharcigan in la tago lama rabo sharciga haddii la tago waa lagu kala baxaa wax weynna ma aha ma ogol yihiin yaa ogol in gudoomiyaha baarlamaanka codka kalsoonida laga qaado macnaha gacantaga xitaa ma naqanayo ninkan waxaa lagu doortay si qarsoodi ah madaxweynaha sida loo doortay isagana loo doortay sidaasaa la rabaa marka taasaa keenaysa marka isjijiidkan inuu bato oo gudoomiyaha baarlamaanka nin oday waa haddii la wareeriyo marka dambe yiraahdo warnimihii aniga intaan kadib ma sii joogi kara waa iscasilaya intaas inay ka keenaan rabaan ma jiraa marka sharci kala hagaya gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya walaahi horta in dowladda federaalka Soomaaliya haddii dastuurkeena dalka si caadi loogu dhaqmi lahaa wax badan maysan qaldami lahayn aniga hadda ka hor waan sheegay haddana waan ku celinayaa caqabadda 13 sano ka badan dalka Soomaaliya haysata waxaa waaye dastuurka waaye dastuur 14 sano ku dhow oo la leeyahay qabyo qoraal waaye horta caqabadda ugu weyn inay haysata arrinta dastuurka waaye dastuurka wuxuu xuquuq siinaa meelaha qaar madaxweynaha inuu ka qaado hantala wuxuu siinayaa ra-iisul wasaaraha oo ka soo qaadaya madaxweynaha ku soo celinaya isaga dhan waxaa waaye waa mid maskaxiyan marka la fariyo waa ku jahwareeraysaa dastuurka dalka markaa dib u aqriso waxaa is leedahay dada ku feegaaray oo ku ciyaaray dadka aqoon-yahanada hadda dastuurka gacanta ku hayo sida wasiirka nin wax badan yaqaan waaye oo haddii talada iyo maxaan ku dhahaa tusaalooyin badan la sii lahaa oo sida lagu ansixi lahaa wax badanna laga saari lahaa xal badan imaan lahaa professor Jawaari gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu ka mid yahay raggii dastuurkii Soomaaliya qoray oo aqoon-yahanada gacanta ku hayay mararka qaarna waxaa dhihi kartaa war dadkii waxaan qoray xaggee ka yimaadeen marka cadaadis badan oo dastuurka ka jirana wuu jiraa tusaale madaxweynaha muxuu ku yimid cod buu ku yimid xildhibaanaha doortay ra-iisul wasaarahana yaa magacaabay madaxweynaha magacaabay qof la magacaabay iyo qof cod ku yimid badan qof cod ku yimid ee la soo doortay mararka qaar markii la magacaabo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahani xaaladaha Soomaaliya ka jiray waa la socotaa marka caqabadaha dhan markaad fiiriso arinta dastuuriyan waa haddii dastuurka la saxo isqabqabsi iyo dhibaato ma aysan imaan lahayn marka aniga sidaas mar walba aan ku soo koobaa arintii la isku qabsaday keentay mooshinka weli way taagan tahay marka qaab sidee ayaa lagu xallin karaa isleeda walaahi arintan siyaasadda marka laga hadlayo gudoomiye Jawaari iyo ra-iisul wasaaraha u dhaxayso hadda beesha caalamka soo faragelisay madaxweynaha Soomaaliya isagana sidoo kale wuu soo farageliyay markii madaxweynuhu isagoo ka aamusan oo maalintii ugu dambeysay oo la qaadi rabay badan oo beesha caalamka yimid waa ogtahay Soomaaliya weli waxaa jooga ciidamo ka socda AMISOM amniga weli ma hanan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya qarash badan ayaa la geliyay dalka ammaankiisa marka laga hadlayo maalintaas waxaa laga cabsaday in ay dhacdo caqabad baarlamaanka dhibaato weyn ee ka dhacdo waa ogeed xildhibaanada labada dhinac siday u kala hadlayeen madaxweynaha wuxuu qaatay go'aan sax ah wuxuuna kala badbaadiyay dhib Soomaaliya maalintaas oo qabsan lahaa 31 dhibkaasna waxaa kow ka noqon lahaa mas'uuliyadda qaadi lahaa madaxweynaha Soomaaliya isaga laga rabay inuu go'aan qaato inuu aamuso meehan madaxweynaha marka qaar waxaan isleedahay inuu madaxweynihii intaasoo qof ee taageertay oo rajab badan laga sugayay
in uu dadka kale dhex galo oo si xal ah oo nabadeed u kala xaliyo waa dhici karta waa la ogaanaha Soomaaliya horta siyaasadeeda wax qarsan ma laha maanta qofka la magacaabayo anagoo Nairobi joogno ayaa la soconaa marka dhibaatooyinka anagana haysta xitaa qayb ka mid ah marka madaxweynaha waxaa fiicnaa doorkiisa inuu ka qaato arintan oo go'aan ka qaato intaanan cadaadiska la soo saarin ka hor aniga halka waxaan u arkaa shaqo badan hadda laga sugayo xukuumadda baarlamaanka waxa laga sugayo shaqooyin laga sugayo laamihii amniga saraakiisha iyo taliyaasha ciidanka iyo dhan ayagana shaqa laga sugayo wixii dhan hadda waxa la wada fiirsanaa mooshinki iyo yaa raayay xildhibaanada yaa soo goostay inta tiyaatar ciyaar ka socota ama maxaan ku dhahay riwaayad ka socota amal ayaa loo fiirsanaya daawadayaal ayaa loo qoday waxa fiican marka mooshin waa laga keeni karaa gudoomiyaha baarlamaanka mooshin hadii laga keeno codka baarlamaanka lagu kala baxo ma aha in la jijido ma aha ciidan loo tababaray oo 100 iyo dhowr gaarayo oo muddo gacanta ku hayay amniga xaaladda Soomaaliya waa la socotaa baarlamaanka in maanta ciidanka meesha laga qaado marka waxa fiicneed kaliya in baarlamaanka la kala tago nin walba awoodiisa iyo xaniiniyiisa inuu cogsado oo yiraahdo aniga intaas haysta adiga intaas ma haysta hal isugu yimaada baarlamaanka laakiin meelaha in laga qeexeeliyo shir jaraad la qabto habeenka 7 saac saxaafadda la wareeriyo dhibaato weyn laakiin arinta hadda ugu weyn oo marka laga soo tagada mooshinkii iyo marka laga soo tago aqalka sare waxay dhaheen way buray mooshinka uu buray xildhibaanadii wada iyagana mooshinka wadana waxay leeyihiin wili mooshinka uu taagan yahay marka qaab sidii ayaa la isugu imaan karaa loo soo fahmi karaa isfahanka aad u fudud yahay laakiin dadka hadda madaxda noo ah in isfahmo ma rabaan isjijiidkana waxay u arkaan dan iyo xal bay u arkaan sababtoo waxa ka go'an xukuumadda iyo ra'iisul wasaaraha in meesha uu ka baxo gudoomiye Jawaari hadduu san bixin caqabadan way taagnaanaysaa ayaga saas aaminsan gudoomiye Jawaari maanta ma hayo cod oo ku baxo ama maxaan ku dhahaa siyaasad oo meesha lagu saaray ma jirto cod xildhibaano baarlamaan inay baarlamaanka la furo la isugu yimaado oo codka kalsoonida si qorsooda loo qaado oo lagu ridana maysan jirto 184 xildhibaan taas marka waxa keenaysa marka in mar walba dhinaca kale uu fiiriyo oo kubadda la isku baabaaso inta sharciga laga cararayo oo nidaamka aan la qaadanaynin iyo dastuurka yar noo yaala aan lagu dhaqmaynin caqabada saasi u taagnaanaysa marka ugu dambeysana waxa waaye qolada laga awood bataa meesha ka bixiyso iyadoo aan sharci la aadin xerjajab iyo Soomaaliya sidii ku dhaqmi jirta adib lagu laabanaya iyo walaalo u tanaasul iyo walaalo saana noqotay xaalado aan la fahmi karin oo dalka marka qaar lagu dhaqaajin waa maasantaa ugu dambeyntii halka Soomaaliya maxaad isdhihi kartaa uu noqon doona wallahi aad u maasantahay Soomaaliya muddo waxa ka jiray dagaal sokeeyay dalka burbura ka dhacay maxkamadaha soo qabsaday maxkamadii kooxo kale oo al-shabaab iyo argagixisada ka dhashtay kadibna dawladda federaal iyo kumeel gaariye kala duwan ayaa dalka ka soo dhashtay Soomaaliya saan inuu ku jirto oo caalamka sidaan ugu fiirsadanay dhibaato badan oo caalamka xitaa mararka qaar u arki karo haddii dawladda Soomaaliya dawlad la'aan ay noolaatay adduunka dhan horta dawladaha qaar waxay aaminayaan hadiiba saan lagu noolaan karo anaga dawlad xitaa mararka qaar ma rabno marka Soomaaliya waxa u fiican nidaamka saxda ah inay ku dhaqmaan in laga boodo nidaamka ku saleysan qabiilka iyo nidaamka awood sheegashada haddii si midnimo leh oo wada jir Soomaaliyeed qof walba xaqiisa u heli karo Soomaaliya waxa waaye halkan iyo dhibaatadeeda Soomaaliya waxa soo dhan way ka bixi lahayd dhibka ugu weyn wuxuu ka jiraa waxa waaye nin walbo xaq u salahin oo wuxuu rabaa inuu qaato tusaale haddii aad adiga jagadan lagu siiyo inaan kugu qabsanayo wuxuu ku leeyahay adiga jagadan mu qalantid marka xaq darra iyo nidaamyada qaar ee jira Soomaaliya waxay keenaysaa in dalka Soomaaliya uu burbur mulba ku yimaado haddii nidaamka sharciga iyo dastuurka iyo midnimada laga shaqeeyo Soomaaliya barwaaqay gaaraysaa waxa qaxootiga dalalka loo wada cararayo oo loo wada aadayo waa amni haddii amni la helo dhaqaalihii Soomaaliya wax laga qabto beeray iyo kheyraad badan oo dalka leeyahay si kalsooni leh oo wada jir ah loo qaybsado waxaan dhan ma iimaanay laakiin nin walba wuxuu rabaa
haddii uu meesha madax ka noqdo wax walba oo Soomaaliya leedahay inuu isaga qaato taasana keenaysa mar walba in dhibaatada ay sii jirto guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayna wareysiga gaarka aan ku eegaynay xaaladda guud ee siyaasadeed ee iminka ka jirta gudaha dalka Soomaaliya la qayb galayay Cabdiraxmaan Maxamed Cali Diini oo ah falanqeeye arrimaha Soomaaliya anigu Cabdullaahi Axmed Cali idin la socodsiinaya dhanka farsamada iyo kaamirada waxay ahaayeen Cali Maxamed Abuukar iyo Naasir Macallim dib intaan ku kulmi doono wareysi kan lamida nabadgelyo